بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعون ونكسن داود الميل والبوا جوجتان كسو دوادا ورك حقت دالك قضبدا aad ku maqli doontaan warkeenana waxa ka mid noqon doona dawladda federaalka Soomaaliya oo heegan gelisay hay'adaha iyo shaqaalaha ka hortagaya cudurka Ebola hay'adda culimada Soomaaliyeed oo war ka soo saartay xasuuqii ka dhacay magaalada Gaalkacyo shir looga hadlaya amniga oo Muqdisho lagu qabtay maamulka Galmudug oo sheegay inay qabteen raggii ka dambeeyay dilkii ka dhacay Dhuusamareeb maamulka degmada Kismaayo oo digniin u diray qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Kismaayo howlgallo dad lagu qabtay oo laga sameeyay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho kulamo lagu xalinayo xiisada ka taagan magaalada Beledweyne oo bilaabatay maamulka gobolka Hiiraan oo hadda la doonayo in khilaafka madaxda maamulka Hirshabelle kala dhaxeeya xalka madambeysah laga gaaro akhbaaraadka caalamka ee warkeena aan idinku soo gudbin doonana waxa ka mid noqon doona cudurka Ebola oo wadamada dhaca geeska Afrika soo wajahay iyo xuutiyiinta oo markii afraad daroon ku weeraray garoon ku yaala dalka Sacuudi Carabiya intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona warka warbaahinta xogta dalka saaxiibayaal hadii aad channelkeena ku cusub tahay ama warbaahinta xogta dalka aad ku cusub tahay subscribe noo saar gambaleelka furo sidii wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya kugu soo dhacaan ama share noo dheh like noo saar mahadsanidin warkii oo dhan aan ku bilaabay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay gabi ahaanba heegan gelisay hay'adaha iyo sidoo kale shaqaalaha ka hortaga cudurka Ebola wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in dawladda Soomaaliya ay heegan gelisay hay'adaha iyo shaqaalaha loogu talagalay inay ka hortagaan cudurka faafa sida xun u dhibaatay bini'aadamka Ebola wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa shaacisay in wasaaradda heegan ay gelisay shaqaalaha isla markaana ay ka hortagayaan dhibaatooyinka cudurka Ebola waxay sidoo kale sheegtay in arrintaani ay ku aadan xanuunka Ebola ee la kaashan doonaan hay'adaha caalamiga ah kuwaasi oo ka howlgala Soomaaliya iyagoona sheegtay in ay mar waliba ay dhibaatooyin fara badan ay ka cabsi qabto dawladda Soomaaliya inay soo wajahdo dalka Dr. Fawziya ayaa waxay xustay in la tashiyo badan ay sameeyeen wasaaradda caafimaadka ayaa bulshada u xaqiijisay inay jiraan hadda qatar ka taagan Soomaaliya oo ku saabsan Ebola waxaana ay sidoo kale sheegtay inay heegan sare ay gelisay gibi ahaanba shaqaalaha caafimaadka waxa wadamada dariska la ah Soomaaliya soo wajahay cudurka Ebola iyadoona dawladaha kala duwan ee caalamka hore uga digeen in Soomaaliya ay qatar u gasho halista cudurka Ebola Galmudug maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegeen inay qabteen raggii ka dambeeyay dilkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb madaxa xukuumadda dawlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Galmudug ay gacanta ku dhigeen dadkii ka dambeeyay dilkii 4 ruux oo lagu dilay duleedka magaalada Dhuusamareeb Sheekh Maxamed Shaakir ayaa ku tilmaamay fal ay raggaani ku kaceen kuwa aan wanaagsaneyn waxaana uu shaaciyay in maxkamadda la horkeeni doono madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ciidamada ammaanka Galmudug ay wadeen howlgallo ay ku raadinayaan dadkani oo dilalka kala duwan ka geystay waxaana uu sheegay in mar walba loo baahan yahay in laga hortago hase yeeshee ma sheegin Sheekh Maxamed Shaakir tirada dadka la soo qabtay in ay ka dambeeyeen dilkii loo geystay 4 ruux ee xoogsatada ahayd 4 ruux ee lagu dilay duleedka magaalada Dhuusamareeb ayaa ka soo jeeda gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana magaalada Dhuusamareeb laga dareemayaa in dadka ka soo jeeda gobolada Koonfur Galbeed inay isaga baxaan magaaladaasi kadib markii cabsi badan ay la soo diristay waxa sidoo kale ilaa hadda gacantaana lagu soo dhigin 9 ruux ee lagu dilay magaalada Gaalkacyo dadkii ka dambeeyay iyadoona maamulka Galmudug ay markii ugu horeysay ay ka hadleen dilalka kala duwan ee loo geysanaya dadka ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhinaca kale hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa war ka soo saartay xasuuqa ka dhacay magaalada Gaalkacyo hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa war saxaafadeed ka soo saartay falkii lagu dilay ku dhawaad 10 ruux oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug hay'adda ayaa ku baaqday in la garab istaago ehelada dadkii la dilay sidii ay ku heli lahaayeen cadaaladda dadkii dambiga galayna loo hirkeeni lahaa sharciga madaxa golaha culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa sheegay in culimada ahaan aysan marnaba u dulqaadanaynin dhibaatooyinka kala duwan ee halkaasi ka dhacay dhanka kale Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa sheegay in arrintaani ay keeni karto in dadka Soomaaliyeed ay u noqdaan isla markaana halka dhibaato kastana ay qabiil mar kale lugaha la gali karto Soomaaliya sidoo uu
sheegay Sheekh Bashiir. ugu dambeyn gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay iska ilaaliyaan wax waliba oo dhaawici kara midnimada iyo sidoo kale wadajirkooda, waxaana uu tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed ay walaalo yihiin talaabo kastana loo baahan yahay in laga hortago sida uu sheegay Sheekh Bashiir Axmed Salaad. maamulka magaalada Kismaayo ayaa waxay digniin culus u direen dadka waraaqadaha feersada ah ku kala iibinayeen dhulka. maamulka maaliyadda degmada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa digniin adag u diray kooxaha dadka shacabka ah lacagaha ugu qaata warqadaha been abuurka ah. gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Kismaayo ee dhanka maaliyadda Rashiid Cabdi Mudulow oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ugu baaqay dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Kismaayo ee caasimadda dowlad goboleedka Jubbaland inaysan bixin lacagta canshuurta guryaha oo aysan ogeyn maamulka Jubbaland. sidoo kale waxa uu sheegay in Rashiid Cabdi in maamulka maaliyadda degmada Kismaayo 2 bilood ka hor uu joojiyay qaadista canshuurta guryaha, isla markaana maalmihii dambe ay soo baxeen kooxo burcad ah oo isaga dhigaya dowladda goboleedka Jubbaland isla markaana lacag ka qaadaya dadka. ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda ee degmada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in marraba aan loo in dhibaatooyin kasta oo bulshada ku nool magaalada Kismaayo loo geysto ay mar walibana ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan dadka doonaya in dhibaatooyin fara badan ay u geystaan dadka shacabka ee ku nool magaalada Kismaayo. maamulka gobolka Banaadir iyo taliska booliska ayaa waxa ay ka wada hadleen amniga caasimadda. xarunta maamulka degmada Shibis ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay shirka amniga gobolka Banaadir. shirkaani ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariiso, isla markaana waxa uu ka soo qayb galay taliyaha ciidanka booliska Sareeye Gaas Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko iyo saraakiil ka tirsan laamaha amniga. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Axmed Tuulax iyo sidoo kale maamulka degmada Shibis. shirka caasimadda ayaa waxaa si gaar ah looga hadlay isbedelka amniga caasimadda iyo talaabo kasta sidii loo qaadi lahaa. shirkaani ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta amniga caasimadda Muqdisho, sidii ay iskula shaqeyn lahaayeen laamaha amniga iyo maamulada degmooyinka gobolka Banaadir. waxaa sidoo kale mas'uuliyiinta maamulada degmooyinka gobolka Banaadir iyo maamulka gobolka ay gabi ahaanba ay sheegeen talaabo kasta oo la qaadayo ay noqonayso mid amniga caasimadda si gaar ah looga hadlayo. arrinkan ayaana sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah ay siin doonaan sidii amniga caasimadda loo sugi lahaa. mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolka ayaa waxay tilmaameen in xaalad kasta oo amniga ah si gaar ah in looga fikiro ee muhiimadeeda ay leedahay, waxaana ay sheegeen in arrimaha mararka qaar ee dhibaatooyinka dhanka amniga mararka qaar ka dhacaya Muqdisho aan marnaba loo dulqaadanaynin. sidoo kale waxaa maalmihii ugu dambeeyay maamulka gobolka ay wadeen in isbedel amni ah ay sameeyaan. howlgalla dad lagu soo qabtay ayaa waxaa laga sameeyay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir. waxaa ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ay howlgallo ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. ciidamada ayaa howlgalka intiisa badan ka sameeyay xaafado bartilmaameedkooda oo ahaa, isla markaana waxay ku soo qabteen dad u badan dhalinyaro ah kuwaasi oo la isugu geeyay goob barxad ah. sidoo kale inta uu howlgalka socday ayaa waxaa ciidanka ay baaritaano kala duwan ay ku sameynayeen guryo ku yaala xaafadaha howlgalka laga sameeyay, waxaana dadkii ay ku soo qabteen halkaasi qaarkood la sii daayay halka kuwa kalena horey ugu wateen ciidamada dowladda Soomaaliya. ujeedka howlgalka xalayto laga sameeyay degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa mid amniga degmooyinka gobolka Banaadir lagu xaqiijinayo oo marka qaar ay ka dhacaan falal amni darro oo isla markaana ay dhibaatooyin kala duwan bulshada qeybaheeda kala duwan loogu geysto degmooyinka qaar. lama lagu xalinayo xiisada ka taagan magaalada Beledweyne ayaa waxa ay ka dhacday qaybo kamid ah magaaladaasi. magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ka bilowday kulamo lagu xalinayo khilaafka iyo xiisada ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, balse uu diiday xilka qaadistaasi. wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabelle ayaa shalayta gaaray magaalada Beledweyne iyo ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Rooble ayaana bilaabay kulamo lagu xalinayo xiisada ka taagan magaalada
beledweyne waxaana ay la kulmeen madaxweyne waare yuusuf hagar dabageed, wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabelle xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Dhaqdhaqare iyo xildhibaan Ismaaciil Nuur ayaa si wadajir ah waxay u sheegeen in ay ka qayb qaadanayaan xalinta xiisada ka taagan magaalada beledweyne. sidoo kalena waxa uu sheegay inay wadaan xalinta dagaalkii ka dhacay deegaanka kala beerka ee duleedka magaalada beledweyne ee sababay in uu geeriyoodo taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan Maxamed Macow Xalane Allah ha u naxariistee. waxaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada beledweyne ka taagnaa khilaafyo kala duwan iyadoo bulshada qaybaheeda kala duwan ee halkaasi ku sugan ay sheegeen in dhibaatada mararka qaar ka taagan magaalada beledweyne xalkeeda looga baahan yahay madaxda maamul goboleedka Hirshabelle. halka warkaasi daawadayaal aad kala socotaan waa warbaahinta xogta dalka. haddaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe dhaho isla markaana furo gambaleelka sidii wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya ka ugu soo dhacaan. sidoo kale like noo saar sheerkana noogu dadaal. mahadsanidin. imikadan akhbaaraadka caalamka. kooxaha Xuutiyiinta ayaa markii afraad daroonka ku weeraray garoon ku yaala dalka Sacuudi Carabiya. maleeshiyaadka Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa waxay saakay diyaarado daroon ah oo lagu buuxiyay waxyaabaha qarxa ku weeraray garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha ee magaalada Abah oo ku yaala koonfurta dalka Sacuudiga. telefishinka kooxda Xuutiyiinta ee Al Misrah ayaa shaaciyay diyaarad daroon ah oo lagu weeraray garoonka Abah ee dalka Sacuudiga. waa weerarkii afraad ee kooxdaasi la beegsadaan garoonkaasi hal toddobaad gudihiisa. dowladda Sacuudiga weli ma aysan xaqiijinin wararka ay Xuutiyiinta sheegeen isla markaana inay saakay ku qaadeen garoonka Abah. kooxdani ayaa waxaa kaloo sabtidii lasoo dhaafay sheegatay inay diyaarad daroon ah ay ku weerareen laba garoon oo ku yaala magaalooyinka Abah iyo sidoo kale Jizaan ee koonfurta Sacuudiga. sidoo kale Arbacadii lasoo dhaafay waxay kooxda Xuutiyiinta gantaalo ku garaaceen garoon diyaaradaha ee magaalada Abah ee dalka Sacuudiga halkaasi oo ay 26 qof ay ku dhaawacmeen. dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxay maalmihii ugu dambeysay weerar kala duwan ay kala kulmaysaa kooxaha Xuutiyiinta oo ka soo horjeeda hanaan siyaasadeedka ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ay wax ku maamusho. cudurka Ebola ayaa qayb ka mid ah bariga Afrika ka bilowday. warbaahinta dalka Kenya ayaa ku warameysay in qof qaba cudurka halista ah ee Ebola lagu arkay gobolka Kericho ee dalka Kenya waxaana gobolkaasi laga dareemayaa xaalad cabsi oo la xiriirta cudurkani. saraakiisha caafimaadka ee gobolka Kericho ayaa sheegay in haweeney Kenyan ah oo lagu shakisan yahay cudurka Ebola uu ku dhacay la dhigay xarunta caafimaadka oo lagu karantiilayo sida cudurkaasi u sii faafin. haweeneydan cudurka looga shakisan yahay ayaa ka timid dalka Uganda oo ninkeeda ku nool yahay waxaana dowladda Kenya heegan gelisay hay'adaha caafimaadka sidii looga hortagi lahaa cudurka uu sii faafo. dalka Uganda ayaana dhawaan lagu arkay cudurka Ebola oo inta badan dhibaatooyin badan bulshada qaybaheeda kala duwan ay saameyn ku hayo. dowladaha caalamka ayaana hore waxay u sheegeen in wadamada dhaca bariga Afrika saameyn badan uu ku yeelanayo cudurka Ebola. warkii dunida daawadayaal aad ka daawanaysan warbaahinta xogta dalka oo anaga inta. haddii aad daawada janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo dheh, like noo saar, share noo dheh, sidoo kale gambaleelka furo sidii wararka ugu xiisaha badan ee Soomaaliya ay ku soo dhacaan mahadsanidin.